fiidnimo wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena fiidnimo waxaan ku eegi doonaa xubinta koowaad qodobo dhowr oo ku saabsan caalamka kubadda cagta haddii aad naga cusubtaa daawade fadlan subscribe noo saar sii sheergare saxiibadiina la wadaaga barnaamijka waxaa sponsor gareeyay shabakada kooxda.com wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha aad ka heli karaysaa dukaanka smartphone-ada ee Zackphones ayaa ka mid ah Somai BTV haddaba abaalmarinta Golden Boy iyo waliba musharaxiintooda baa la soo saaray rag badan baa ku jira isla markaana dagaalamaya waxaa ka mid ah Karim Adeyemi iyo waliba Antonio Silva oo markaasi Benfica ka tirsan adiga markaa Real Madrid wiilkooda Camavinga iyo Fabio Carvalho iyo Ansu Fati iyo Gavi iyo waliba markaasi Goten oo waliba xitaa xidiga dhowra uu ka mid yahay Gravenberch wiilka la yiraahdo ilaa iyo Gavadio lagu daray rag fara badan oo Pedri uu ku jiro ayaa ka mid ah liiskan isla markaana Matthias Tel iyo waliba wiilkii ahaa Odegaard oo ka tirsanaya Udine liiskan waxay noqonayaan ragga u tartamaya abaalmarinta markaasi Golden Boy waa lagu tartamaya sanadkii horena 2020 waxa qaatay wiilkii Pedri ahaa haddaba waxaan daqiiqada siin doonaa kooxaha Liverpool iyo waliba Manchester City labaduba siday isu dagaalayaan labada macallin ee Klopp iyo waliba ninkii kale ee Pep Guardiola maxay ka kala yiraahdeen labada naadisi sidee bay isaga hortagayaan Haaland iyo Van Dijk xaalkoodu waa sidee haddaba marka la eego Pep Guardiola ayaa ka hadlay shirkii jaraa'idda kulanka waxaana isagu sheegay inuusan hadda ka fakarayn mustaqbalkiisa anigu wuxuu yiri wax aan ka fakarayo mustaqbalkaygu saabsan hadda ma jiraan waqtigan waa muhiim buu yiri kooxda inay guuleysato isla markaana waxaan ka shaqeynaynaa sidii wadada saxda ay u sii qabsan lahayd isla markaana Man City ay u sii guuleysan lahayd kulamadeedu wuxuu yiri waxyaabo badan oo aanu ka hadalnaa ayaa jira marka la eego nadiga kubadda cagta City waxaa ka dhacan xidigo wiilkii Kyle Walker wili kama caafimaadin buu yiri Stones sidoo kale kama qayb galayo kulanka Liverpool waxa laga yaabaa isbuuc kale inuu maqnaado buu leeyahay Calvin Phillips sidoo kale hoggalkiisa dib u caafimaad ayuu sidoo kale isaguna wadaa geesta kale wuxuu sheegay ninkii kuwaas yaaba soo xustaba Haaland hadii la arko waxa leeyahay uma baahna qaybta maxaa yeelay intay dhalinayaan ayaaba ka badanba marka nadiga kubadda cagta ee Manchester City waxa leeyahay wiilkii Haaland ha isaguna u diyaarisa markan aad buu muhiim ugu yahay marka Pep Guardiola waxa sidoo kale sheegay Liverpool inay cajiib tahay wuxuu yiri waa koox fiican waana kooxda hadda tartamayaasha ugu xoogan ugu adag buu tilmaamayaa Liverpool wili waa xoogan tahay buu yiri aniga yaan la dhihin Liverpool baa galab-galabe aadana ayaa yiri laga farsamaysto ma doonayo marka wuxuu doonayaa in kooxda kubadda cagta Liverpool kooxdiisa in markaasi ay ka taxadarto wuxuu yiri Haaland weerarkan buu hogaamin doonaa buu yiri aad buu ugu faraxsan Salah buu isagu sheegay inuu adag yahay isla markaana in laga hortagay adag tahay wuxuu yiri ninkan gool fara badan buu naga dhaliyay markastoo naga hortagana shabaqeena waa soo taabanaya waanu ka shaqeynaynaa buu yiri si aan u godoomin lahayn Liverpoolna aan waxa kamayn lahayn waliba aan u guuleysan lahayn haddaba Jurgen Klopp lafsadiisa waa hadlay waxa uu sheegay in nadiga kubadda cagta Liverpool marxaladda ay ku jirto isla markaana ay ka hortagayso kooxda ugu fiican dunida war City baan ka hortagaynaa buu yiri kooxda ugu fiican dunida iyo weeryahanka ugu fiican Haaland ayaan ka hortagaynaa buu isagu yiri waxaan ka shaqeyn doonaa in markaasi aanu joojino war wuxuu yiri waan isku daynaa inaan xakameeno laakiin wuxuu yiri waan ku fashilanay laakiin hadda wuxuu isagu qabaa in kooxda marka xoogan tahay laakiin City dariiqad uun marka laga hortagi karayo waxa isagu qabaa si wanaagsan ay u ciyaari karayaan muhiimadoodu ay tahay in natiijada iyagu ilaashadaan geesta kale nadiga kubadda cagta Liverpool iyo waliba marka City saddex arrin baa laga sheegayaa isla markaana warbaahinada caalamku ay ka qorayaan axadda wuxuu noqon doonaa kulan laba aan ka qodo qoslin doonin Klopp iyo waliba Pep waa laba dagaalami doono isla markaana mid uun guusha ay raaci doonto way adag tahay kulankaas oo kale barbariin ku dhamaado Haaland waxa la yahay isagu wuxuu noqon doonaa mid isha lagu hayn doono iyo waxa uu la iman doono arinta ugu muhiimsan kooxdu yaa guuleysan doona marka laga soo tago waxa la yahay sidee lagu joojinaya Haaland markaad eegtay rekoorkiisa 13.25 buu XG-giisa maraya expected goalskiisa 49 shoot isagu toore 19 gool buu ku dhaliyay halka hore ugu jirto waa laga yaabay waa 0.77 baa laga hadlayaa waa XG-giisu 13.25 war waa wax waaliya sida kelmadu macno u leedahay Van Dijk difaaciisu xogaa waa hooseeya baa leeyahay waqtiyadii ugu dambeeyay Liverpool sidoo kale waxay ku dhibaatoon karaysaa marka la eego in qaybta dambe iyadu ay xakamayso isla markaana mashaakil ay la kulmaan sababtoo ah nadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Liverpool mar walba waxaad arkaysaa difaacooda oo soo horeeya kulankii Crystal Palace oo kale eeg kulamo kale waad arkayseen taasoo markaa mashaakil ah waliba Haaland waa orod badan yahay Liverpool waa loo digaya markaasi sidoo kale nadiga kubadda cagta City waxay u baahan tahay iyaduna in Salah iska ilaaliso waana muhiim baa leeyahay in Van Dijk orodkii lagu yaqiin isagu leeyahay hadii kale waa loo yaabi doonaa sida kelmadu macno u leedahay inta baan ka gudbinaa marka Liverpool iyo waliba
kooxdaasi Manchester City. Ima waxaan aadi doonaa Barcelona iyo Real Madrid ayaan daqiiqada siin doonaa. Haddii aanu ku bilowno nadiga kubadda cagta Barcelona waxaa leeyahay drag ayay markaasi toddobaadka maamuusi doontaa isla markaana waxaa jira heshiis dhex maray Spotify buu heshiis kula jiraa markaa ninka malaayiin bilyono ayaa daawatay oo dhowr jaro isla markaan Spotify laga daawaday waana markaa fanaanka reer Canada astaantiisa bay xabadka ku soo xadhan doontaa nadiga kubadda cagta Barcelona bedelkeeda Spotify kaamnudu lagu qoran jiray xabadka ma jiri doonto markaa Spotify waxa lagu qoran doonaa markaa sawirka astaanta ama loogada drag dabcan reer Ingiriis oo iyaguna ku maadeysanay baan arkay Sheffield Wednesday astaanteedii bay qaadanaysaa Barcelona bay leeyihiin laakiin ujeedadu waxay tahay drag fanaanka reer Canada iyagu inay ku weyneeyaan isla markaana waxaa la arkay isagoo sare u haya maaliyadda kooxda isla markaana qaabkaasi Barcelona iyadoo ay la iman doonto way kaga hortagi doonto waana heshiis dhex maray Spotify iyo Camp Nou iyo waliba fanaankaasi oo aad ogtiin markaasi haddaba nadiga kubadda cagta Barcelona qaar kamid ah xidigadu way careysiin baa leeyahay waxayna ka careysiin sida ay wax u socdaan dabcan xidigo dhowr bay kooxda keentay Casillas iyo waliba marka Bellerin iyo waliba Christensen iyo Marco Alonso laakiin inta badan waxaad arkaysaan keedkin la gelinayo kuwii horun baa ciyaaraya Busquets ha noqdo iyo waliba kuwii ka horeeyay dabcan kuma faraxsana marka rag badan ugu horeeyo Dion kan isla markaana uu kamid yahay Diba iyo in Janis marka la siin waayo isla markaan ragga kale Janis la siiyo waliba xitaa ogsoono ninkii Frankie de Jong wuxuu u diiday Manchester United isla markaan uu yiri ma doonayo oo maba rabo in aad halkaasi haddana aakhirkii waxa leeyahay Europe League buu ka cararayay Europe League oo garguuranay baa u yimid baa leeyahay Europe League oo laba lugood leh baba u yimid markaas hadda gurigiisa ugu yimid alaabka u taagan hadda aniga khamiis leeban diidanaa buu leeyahay khamiis markaas iska magaalada iska tago iska baashaala baan doonay laakiin hadda ma jirto kubad baa laga rabaa Bruni baa laga doonayaa marka xaalka ma qurux badna baa leeyahay wali Barcelona ma ku jirnaa ninkii gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona ninka lagu magacaabo Juan Laporta waxa uu ka hadlay in xilka laga qaadi doonin ninkii Xavi ahaa wuxuu yiri wararsaas oo iska jira bariya laakiin kalsoonideenu mar kale baan siinayna isla markaana cadeynayna annagu wuxuu yiri ninka agtiisana la kama soo mari karayo wuxuu soo hadal qaaday drag laakiin wuxuu sheegay inay marka aad ugu careysan yihiin in natiijo 3 gool in dhaleen haddana iyagu ilaashan waayaan wuxuu sheegay Xavi Hernandez mar walba muhiim inuu yahay isla markaan uu soo garanay waxaan arkay buu isagoo marka aad u murugaysan waa garan karaya buu mar walba waxaan doonaynaa buu anagu inaan ku sii jirno tartanka Champions League laakiin markan waxaan diirada saareynaa horyaalka buu leeyahay geeska kale fariin buu u diray wuxuu yiri taageerayaasha kooxda kubadda cagta marka Barcelona hogaamiyashoodu waxay ka mudeen ixtiraam buu yiri anigu waan ixtiraamaya marka BK iyo looda muqaddaska groupka hogaamiyashu waan ixtiraamaya buu leeyahay dabcan kulanka Madrid waa muhiim buu yiri anagu natiijo wanaagsan aan la nimaano wuxuu sidoo kale sheegay Lewandowski mar walba super inuu yahay isla markaana aad buu u daneynaya buu garoonka Bernabeu anagu waa jecelna buu leeyahay Messi waan la kulmi doonaa isniinta buu yiri isla markaana waan ixtiraami doonaa isla markaana wuxuu doonayaa buu yiri Messi in la weyneeyo waana u muhiim buu yiri laakiin soo laabashadiisa kama hadli karay buu leeyahay geesta kale nadiga kubadda cagta markaasi Real Madrid waxa la wiilkii Courtois ahaa waa seegi doona kulanka soo aadan isla markaana ma ciyaari doono dabcan shabakada Marca wadanka Spain waxay leedahay Marca waxay xusaysaa in gibi ahaanba Madrid ay heli dooneen ninkii ahaa Courtois muhiim buu ahaa kooxda waqtigan oo kale aad bay ugu baahnayd laakiin lama heli doono warku waa ka xoguhu waxay tilmaamayaan inaan la heli doonin ninkii Courtois ahaa Courtois oo Madrid aan haysan Madrid waxa waaye Madrid la yaqiin ma la arkayo sababtoo ah Courtois aad u muhiim ugu yahay ninka waa nin balaayo ka dhacday isla markaan artay inta jeer uu isagu badbaadinayo hadda no Courtois baa leeyahay lama helayo marka waan arki doonaa waxa ka soo cusbanaaday laakiin Rudiger bay heli doonaa xogii ugu dambeysay waxay tilmaamayaan ninkan isaguna qinac ama mask isagu xiran doono macnaha wuxuu xiran doonaa marka mask garab uu isagu soo qaadan doonaa isla markaana uu xiran doonaa sida kelmadu macna u leedahay haddaba maxaa ka cusub wararkii ugu dambeeyay waxa leeyahay ninkii ahaa Ten Hag wuxuu isagu sheegay in suuragal ay tahay Ronaldo in laga joojiyo kulamada qaar ganax uu ku dhaco maxaa yeelay canugii dhawaan marka taleefanka uu ka jibiyay xaalad nafsiyan isagu uu galiyay dacwadiisii baa daba joogta wuxuu yiri kalfadhiga waqtigu noqon doono ma go'aanka la soo saari doono ma garan karayo buu yiri waxa dhici doona anagu ma fahmin laakiin Ronaldo muhiim uu noo yahay buu yiri mar walbana isagu wuxuu siiyaa kooxdu ruux iyo waliba marka naftooda inay rumeeyaan oo u dagaalamaan waliba natiijo positive ay keenaan buu mar walba ka shaqeeyaa buu yiri ninka waa cajiib marka wuxuu leeyahay waan arki doonaa go'aanka ay qaataan warnadiga kubadda cagta Chelsea dharbaaxa culus baa ku dhacday kadib markii la sheegay in wiilkii Reece James ahaa wiilkaasi isagu gibi ahaanba waxa uu seegi doonaa koobka dunida baa leeyahay wararka hadda soo baxay waxay tilmaamayaan Reece James inaan la heli doonin aad baa looga walwalayaa marka Reece James oo balaayo ahaa hadii la waayo
dee kooxda waxa waaye waa laydin la yaabi doonaa kooxda kubadda cagta ee blues chelsea kantina waxaa lee lama hayo koobka dunida waxaa laga yaaba inuu sheego warar saas ba soo baxa laakiin Reece James xogtiisu aad bay u weyntaa markaasi ma ogtahay odayga Ronaldo Nazario ahaa inuu doonay inuu iibsado kooxda Brentford ee wadanka Ingiriiska ka hor inta uusan iibsan kooxda Valladolid ee wadanka Spain 2017 wuxuu doonay inuu iibsado nadigaasi Brentford ee wadanka England laakiin ma aysan dhicin baa leeyahay aakhirkii sida kelmadu macna u leedahay tas baa la tilmaamaya haddaba ninkii Marcus Rashford ahaa xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in markaasi aad loogu maadeystay kadib markii kulankii ugu dambeeyay adigu ciyaarayay fursado badan kooxda uu ka lumiyay isaga iyo waliba goolayaha uu fursad lumiyay aad bayna markaas u weerareen taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester United war yaa cunugiho ma waliba markaas haddana meel taag iyo waxaan wanaagsaneyn la taagan tahay natiijo wanaagsan inaad keentay laga doonay bilay aad bay ugu caroodeen markaa canuga iyo fursadaha badan isagu luminayo Marcus Rashford wiilka kooxda kubadda cagta Manchester United الشياطين الحمر xogtii ugu dambeysay sidaas bay tilmaamaysaa marka waan arki doonaa haddaba wiilkii Kieran Tierney waxa uu isagu sheegay dhawaan kulankii isagu ciyaaray inuu isagu ahaa dhaawac isla markaana wuxuu yidhi kulamo dhowro markaa muhiim ah waad arkayseen buu yidhi anigu aan ordi karin laakiin anoo dhaacan baa ciyaaray xataa kulamadii ugu dambeeyey waxa uu daneynaya isaguna daqiiqado badan ciyaaro laakiin maysan u suuragelin waxa uu rajeynayaa hadda in mustawa wanaagsan isagu helo oo weliba Kieran Tierney la yaqaanay isagu ku soo noqdo Zinchenko iyo rag kale baa la rajeynaya xitaa inay u soo noqdaan kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal Kylian Mbappe wuxuu ku fakaraya heshiiskiisa in la kansalo kooxda kubadda cagta ee PSG macnaha laacibka heshiiskiisu wuxuu gaari karaa heer uu burburiyo laakiin professionalnimo ma aha wad ogtiino isla markaana nadiga kubadda cagta ee PSG waxa la yahay wiilka ma doonayo in xaaladda ay marka aad u sii xumaato inkastoo hadda waxa reebay aysan jirinba oo la isku xumaaday waliba markaasi kaalin murugo la gaaray marka ninkan waxa la heshiiska taa in la burburiyo diyaar buu yahay wuxuu leeyahay cancel heshiiska nagu kala wadaan kala tagno laakiin lacag baa ka baxday dadkan lacag baa ka baxday lacagtii soo celinayma ninkii Mbappe ahayo markaas kadib waa laga yaabaa in lagu fasaxo laakiin Sheikh Nasser Al-Khalifi baa leeyahay ninkan kalama iskama yeelayo marka waan arki doonaa aad wanaagsantii si sheer garay saaxiibadina la wadaaga barnaamijku wuxuu habeenkiina marka xubinta koowaad ee wararkeena fiidnimo insha Allah xubin labaad baan ku kulmi doonaa salaam